kulan ay isugu yimaadeen xubno ka mid ah jaaliyadda Somali State ee ku nool magaalada caasimadda Pretoria ee dalka Koonfur Afrika ay ku soo dhaweeyeen xalkii laga gaaray khilaafkii u dhaxeeyay madaxweynaha maamulkaasi Mustafa Mohamed Umar iyo hogaamiyaha xisbiga Ahmed Shide. kulan ay ku yeesheen magaalada caasimadda Pretoria ee dalka Koonfur Afrika ayay ugu baaqeen dadka deegaanka Somali State inay qaataan muwaafaqo iyo wada tashi kana gudbaan isqaqabsiga iyo dhibaatada. shirkan u qabanay jaraa'id in aanu ka hadalno khilaafkii madaxa xisbiga iyo madaxweynaha gobolka u dhaxeeyay. waxaan u mahadcelinaynaa odayaashii dhexdhexaadinta ka galay ee uu kulmiye hogaaminayay. aad iyo aad bay u qabsadeen hawshooda, waan bogaadinaynaa. waxaan kala bogaadinaynaa taageersanahay heshiiskii maanta. aad iyo aad baan kaana u taageersanahay. waxaan leenahay labada gruub ee isku xisbiga ay xilligan haysta gobolka inay isfahmaan oo arrintooda wada hadal ku dhameeyaan oo guri Soomaaliyeed iyo gobol Soomaaliyeed iyo jigjiga iyo odayaasheen loo soo noqdo oo aqligu shaqeeyo oo in badan baynu soo rafaadnay oo adduunka ka harnay aynaan mar dambe isku habsaamin islaax daata inaan sameeynayn u baahnayn. sanadkii hore markiinu isu nimid hadda dabayaaqadiisii waynu bixinay sanadkii cafwiga in wax la soo faarfaarno lama rabin. waxay ahayd meeshii wax la keenay ee nabadda ahayd. xataa dadkii hore ee xukuumadii hore la shaqeeyay in la cafiyaan isla garanay. Mustafana hal baan ku bogaadinaya. waxaan leeyahay go'aankiisnimada ayaad qaadatay, go'aankaagaas ha ka tanaasulin. ka guul ummadda Soomaaliyeed, magaca Soomaaliyeed oo dhanba waxaad u tahay haliyay u soo baxay. halkaa taagnow ayaan leeyahay. magaalada Dirdaba waxay ahayd magaalo Soomaaliyeed, laakiin intan dambe dad kale la siiyay. waxay leedahay magaaladii Dirdaba ummadda Soomaaliyeed idinka ayaan idin sugayaa. aad iyo aad u mahadcelinayaa shacabka Soomaaliyeed sida geesinimada leh ee ay u muujiyeen dareenkooda si ay u difaacaan qadiyadooda iyo danahooda siyaasiga iyo ummad ahaan iyo wax kasta oo ku salaysan danahooda iyo rabitaankooda. marka labaad waxaan u mahadcelinayaa hogaaminta dawladda deegaanka Soomaalida. waxaan kaloo soo dhaweynaa aad iyo aad soo dhaweynayaa sida wanaagsan ee degan iyo qaabka fiican ee siyaasiga dawladnimaadeed ee ra'iisul wasaaruhu ku soo dhameeyay khilaafkii u dhaxeeyay hogaaminta dawladda deegaanka Soomaalida iyo hogaaminta xisbiga talada haya. shacabka Somali State waxaan rajaynaynaa talaabada ay qaadeen maanta iyo garab istaaga xukuumadda cusub ee wadanka ay garab istaageen in ay noqon doonto mid taariikhi ah oo jiilba jiilka dambe oo ka dhaxri doono midnimada ay muujiyeen. aad iyo aad baan runtii aan u bogaadinaynaa. waxaan taageersanahay kulankii ra'iisul wasaaraha iyo madaxweyne Mustafa iyo waqtiga hogaaminayay ee Addis Ababa galabta ku soo gabagaboobay ayaan 100% taageersanahay. waa midka aan bogaadinaynaa ah in uu midho dhalo insha Allah ta'ala. ugu dambeyn waxaa hadalka soo gabagabeeyay Suldaan Muqaddim oo ka mid ah salaadiinta ka soo jeeda deegaankaasi. wuxuuna ugu baaqay dadka Soomaaliyeed inay gartaan waxyaabaha ay gaarka u leeyihiin iyo waxyaabaha kala dhaxeeya dawladda Itoobiya. kala gartaan leeyahay Itoobiya waxaynu wada leenahay iyo waxaynu kala leenahay. markaan Soomaali la hadlayo waxaynu wada leenahay federalism, waxaynu kala leenahay hab siyaasadeedka maamulada iyo horumarinta deegaameysiga iyo gobolaysiga. waxaan idinku dardaarmi lahaa kow midnimada xoojiya. dawladana taageerada aad u haysaan ha ku jeclaanina qabiil, ha ku jeclaanina yacni laaluush. waa inaad ku jeclaataan ood ku taageertaan qadiyadda dhabta ah ee inaga dhaxaysa ee Soomaaliyeed. odayaasha iyo ugaasiyada iyo waxgaradka iyo aqoon-yahanada dhammaantood waxaan kula talin lahaa wax ka barta waaqicayna maraya. Idris Abdi Hassan, TV-ga caalamiga Universal, Pretoria, Koonfur Afrika.